asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa wararkii u dambeeyey ee caalamka iyo soomaalida. waxaan sidoo kale si khaasa aan idinku soo gudbin doonaa wararka dagaalada ka socda waqooyiga dalka Itoobiya oo meel xasaasi ah maraya. barnaamijka waxaan si khaas ah aan ugu falanqeyn doonaa hadduu eebaydmo 9 jabhadood oo cusub oo horle oo looga dhawaaqay dalka Itoobiya. guud ahaan barnaamijkeena waxaan inta badan ku faaqidi doonaa xaaladaha iyo dagaalada halka la kala marayo. waxaan sidoo kale barnaamijka aan ku faaqidi doonaa xaaladda sii murgeysa ee sii xumaanaysa ee dalka Itoobiya. waxaan sidoo kale aan ku soo qaadan doonaa shacab fara badan oo ka qaxaya magaalada Addis Ababa. qodobadaas iyo kuwa kale oo ayaan halkan idinku faaqidi doonaa. waxaana barnaamijka ila falanqeynaya saaxiibkay wacane soo dhawow adiga ugu horeyn bal faahfaahin naga siinaya 9 jabhadood ee maanta looga dhawaaqay ee dalka Itoobiya dibadiisa. aad baad mahadsantahay Ilays. Ethiopia waxay gashay xaalad aad u adag, jabhado aad u tiro badan oo la sheegay inay yihiin tiradooda 9 jabhadood ayaa looga dhawaaqay dalka Ethiopia. jabhadahani madaxdooda inta badan waxay ku kala sugan yihiin daafaha caalamka, waxaana jabhadahan maanta ugu horreyntii looga dhawaaqay inay ka howlgeli doonaan ama ka dagaalami doonaan dalka Ethiopia. laakiin ku dhawaaqista waxay ka dhacday magaalada Washington ee dalka Mareykanka, waxaana jabhadan ay si rasmi ah u bilaabi doontaa dagaalka ay kula jirto Abiy Ahmed. yacni waa jabhadahan oo dhan ayagoo midaysane ayaan dhow ayay bilaaban doontaa, ayadoo aan ogeyn in ururka TPLF OLA iyo sidoo kale jabhadda ka dagaalanta gobolka Bishanguul inay ayagu si rasmi ah u sii dagaalamayeen ayna qabsadeen goobo aad u tiro badan, ayadoo khalkhal ay geliyeen amniga dalka iyo sidoo kale caasimadda dalka Ethiopia. jabhadani waxaa ku jiro jabhad ay leedahay Soomaalida, dowladdeegaanka Soomaalida. jabhadan waxaa lagu magacaabaa jabhadda iska caabinta yacni iska caabinta ee gobolka Soomaalida, waxayna doonayaan dhammaanba jabhadahan in ay ka tuuraan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xukunka uu hadda ku fadhiyo dalka Ethiopia. waxaad moodaa in uu hadda xaaladiisu ay adag tahay, mar haddii 9 jabhadood 3 hore ayaa loo taglaa Ilays. marka haddii jabhado badan hadda lagu dhawaaqay, wadanku xaaladiisa waxay ku jirtaa xaalad aad u murugsan, waxayna noqon doontaa in Abiy Ahmed uu meesha iskaga tago haddii wadanka uu u turayo. waxaan ognahay in wadanka Itoobiya xaaladiisu ay sii xumaanaysay marba mar ka dambeysa. waxaan ogeyn in ay dagaalamayeen jabhadaha Oromada iyo sidoo kale jabhadda Tigrayga. waxaan ogeyn sidoo kale jabhadaha Bishanguulka in ay jiraan iyo deegaamo badan oo dalka Itoobiya in ay jabhado dagaalamo ay ka jiraan. ujeedka dhabta ah ee jabhadahan cusub loogu dhawaaqay maxay yihiin? jabhadahan horta waa isbahaysi, waxaana la rabaa in deegaan walba uu yeesho jabhad xoogan oo ciidamada dowladda Ethiopia meesha ay ku arkaan, yani waa kuwa federaalka afka dhulka u geliyaan. waxaana la rabaa in dhammaanba wadanka Ethiopia khalkhal laga abuuro deegaanada nabadda hadda sida kan Soomaalida oo kaleeto iyo deegaano aad u tiro badan oo wax dhiba hadda uusan ka jirin. jabhadani waxay sidoo kaleeto la rabaa in khalkhal lagu geliyo xukunka Abiy Ahmed uu yacni xukuumaddiisa, sifo ay u fududaato inuu xilka si dhaqso yar ama si dhib yar uu iskaga dego, ayay jabhadani hadda maanta loogu dhawaaqay. waxaana Ilays xusid mudan jabhadan Soomaalida ay leedahay. ma jirin Soomaalida wax jabhada oo ka dagaalamaysa halkaasi iyo wax ciidana oo hubaystay oo ka ahayn Liu Police ma jirin, sidii ururkii OLF yani ONLF u soo xaroodayba ma jirin wax jabhada oo halkaasi ka jirtay. dadka Soomaalidana waxaa hadda ciidan u ahaa ciidanka Liu Police kama jirin ciidan ka soo horjeedo halkaasi kula dagaalamayay. jabhadan maanta lagu dhawaaqay waxay hadda khalkhal gelin doontaa deegaanka Soomaalida oo aan ognahay in uu hadda intiisa badan wax dhiba uusan ka jirin marka laga reebo qabiilad iyo qowmiyado yaryar, qabiilo yaryar oo isdagaalaya waxaan ka ahayn oo dhiba ma jirin. waxaana laga badbaaday dhammaanba sida hadda dagaaladan ooga socdaan gobolka Oromada iyo Axmaarada oo kaleeto dowladda deegaanka Soomaalida way ka badbaaday. waxaan ognahay in deegaanka Soomaalida uu yahay deegaanka kaliya ee ugu xasiloon dalka Itoobiya waqti xaadirkan
kama jirto wax jabhada ah oo duurka ku jira oo dhaqdhaqaaqa ama dagaalada sameynaya ma jiro wax si rasmi ah uga soo horjeeda dowladda mucaarad afka uu ka hadla in uu jiro waa macquul marka ma la isdhihi karaa waxaa foodo iyo jahwareer lagu gelinaya jabhadan ay Soomaalida maanta kaga dhawaaqeen Mareykanka shacabkan sida nabadda ah u degan Soomaali galbeed miyaysan ahayn in sidan ka duwan in ay uga fakaraan aayaha ama mustaqbalka shacabkan muddada dheer soo saara heeriyada gumeysiga ilaa sorta arrintaasi waa arrin aad u fiican haddii ay ka fikri lahaayeen laakiin waxaad moodaa in maxaa la dhihi jiray Soomaalida waxay ku maamahan haweenka Soomaalida waxay dhahaan ilaw cayda geel jira cayl noogu dar yacni waxaa laga wadaa in meel walba aad wax ku yeelato hadda TPLF inagoo hadda saan oga maqan haddii ay waddanka qabsato kow cidda la gumaadi ee amnigeeda khalkhalka la gelinayo waa inaga soo moogid marka hadda anfarta waxay ciidamo badan ayaa goostay oo ku biiray TPLF waa kuwa hadda Catiitu iyo magaalada Candhuuf hadda kaabiga loo jiro oo dagaaladu ay ka socdaan Oromiya waad artaa oo heshiis bay la qaadatay marka inagii maadaama aan nahay third population aan nahay waxay khasab ku noqonaysaa TPLF iyo ciidamadan isbahaystay laazim waddanka inay qabsadaan ay 90% u badan tahay marka jabhadani waxaad moodaa in ay tahay jabhad يعني ربطه إني هادو كبد باريسو TPLF قمات وجيسن لهيد دول ديان كصومالي ذي يضد كشعب كهالكاس كجرو ولو أي في عنيد إن لقى باخص أرنتني أو يعني إذا ماذا اليو بوليسكي أمام با معمول كعجر إن نذبح لو شيء قال له TPLF وات كابل ونقصه هيسو إن أبي أحمد نحكم كيس وادر تحالة دمشق مريو إن حتى محن الجدمون محن سمينا إن ما قويتام ما كنا واقنا مسي آيهنا ما كتشنو inay ahayd yani in la dhaho way fiicnayd laakiin haddana markii dhanka kale laga eego in meel walba inaad wax ku yeelato wax xun maaha ilays maadaama ay jiraan jabhado hore usii dagaalamaya sida kuwan Tigreega iyo jabhadaha Oola oo Oromada iyo ay sii jireen kuwan ayaaba hal maartay ka keeni waaye oo dagaal sanad disaday kula jira dowladda Itoobiya ma kula tahay dad dalka dibadiisa fadhiya in ay xal u keeni karaan dalka Itoobiya horta ma u malaynayo laakiin haddana markii dhanka kale laga eego nimankani horta weligoodba dadka hadda dibadaha jabhadaha kaga dhawaaqa hadda oo nalifo kaleeto in ka badan 30 sano ayay dagaal wadeen oo ay dagaalamayeen dadkii dhamaanayay waxay ahaayeen dad shacaba oo hatta mushaar fiican la siinaynin hooy la siinaynin agoontoodii ayaa meelaha silcaysay oo waxba la siin jirin marka dad kale raba in horta lagu shubo xabadda iyo holaca lagu shubo waa dadka shacabka ee dowladdeegaanka ku nool jabhadan khasa maanta lagu dhawaaqay waxay qoran doontaa ciidamo aad u tiro badan ee deegaanka qoran doontaa waxaana laga horgeyn doonaa ciidamadii liu booliska halkaas ka jira ma jiro ciidan dowladda federaalka ka socdo oo jooga dowladdeegaanka Soomaalida marka dadka la iska horgeynaya waa dadkii deegaanka u dhashay ee Soomaalidaha nimankaas ku dhawaaqayna waxay rabaan ayagu hadhowto interestigooda ay ku wataan laakiin dadkeenu ma fahmayaan intooda badan arrintaasi waxaadna arki doontaa jabhadan haddii ay dadka dowladdeegaanka aysan yani ka taxadirin in la iska horgeyn doono dad wada dhashay dad wada yani hadda dadkeena waad artay abaaro ayaa lagu sidaayo oo dadku irfaadsan yihiin dad maaha hadda maanta dagaal geli karo ama maxaa la dhihi jiray dagaal ka qayb qaadan karo maaha marka dadka aad waa inay uga taxadiraan arrintaasi jabhadana mar dhow waxaad maqli doontaa dagaalo ay ka bilaabeen dowladdeegaanka waa sida ay ayagu ku wadaan aad baad mahadsan tahay daawadayaal waxaan intaasi kusoo koobaynaa falanqayntii koobneyd eenu ka eegaynay xaaladaha dalka Itoobiya iyo jabhadaha cusub ee maanta looga dhawaaqay dalka dibadiisa daawadayaal intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono waa anagoo isku duuban oo idin leh isma dhaafno